إخوتي في العقيدة، قال تعالى في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحبة، حقيقة قريب بن آدم كور رميسية قال يا مسلم با هي الموت وقيري نفولو دونيدان شوكتا واي بحيسا. رسولك ربي أتش على بوت المامية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذه هرتا إذا وقالاني إني وارتا ما ترتبى إله إليه سبحانه وتعالى أدقنا واري ميسي قيري dadkoo dhan baa geeriyoon, kulla jeceliyaa geeriyoon, kulla necbiyaa geeriyoon, ku yar baa geeriyoon, ku weyn baa geeriyoon. ولكن هل الموت نهاية حياة أم بداية حياة؟ أيها الإخوة، geeridu waa safar, waa qof nolol ka tegay oo nolosha dhabta ah bilaabaya. waa qof ka baxay noloshii imtixaanka ahayd oo tegaya noloshii jawaabta la helayay. الأسئلة الحرجة buu bilaabaya qofkaasi. su'aalaha nolosha wadaga qof bini aadanama la weydiiyo. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka marka xabaasha la dhigo ee laga dareero ee uu sanqadha dadkii ka dhaqaaqay maqlayo raaci nacl kabaha jaqaftooda isagoo sii maqlaya in la kicin doono oo naftu dib ugu soo noqonayso. idan naftu waxay ka maqnayd fatro yar bay nafti iyo jasadku kala maqnaayeen. kadibna nolol cusub buu bilaabayaa. wuxuu bilaabayaa daar cusub buu tegey, waddan jadiiduu tegey. yus'al can hawiyatih aw huwiyatih. waxaa la weydiinayaa huwiyadaadu maxay tahy? man ant? lama weydiinayo war dunidii maxaad xoola ka timid, lama weydiinayo maxaad carruur dhashay, lama weydiinayo maxaad daara dhistay, lama weydiinayo qabiilkaad ahayd. cidi weydiin mayso dowladdaad ka tirsanayd, laakiin huwiya intaaba ka gedisan baa la weydiinayaa. man rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk. waa su'aalo hadda laynoo sii sheegay. intaynu dunida kor nool lahay ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala inoo sii sheegay in su-aashaa